dhammaantiin baan islaamiino baduunka joogtiin sanadkan aad baan internetka ugu soo badanay hadii aan Soomaalinahay macnaha aad baan u isticmaalaa social media internetka aad baan ugu dhex jirnaa laakiinse weligaa intaad dhowr daqiiqo waqti qaadatay ma isdhahdata internetka muxuu ahaa internetkan aanu ku jirno eenu maalin walba wax ka search garaynayno maalin walba wax ka daawanayno muxuu ahaa weligaa ma isweydiisay sababta aad taleefankaaga meel walba ugu qaadanaysid musqusha hadaad ku jirtid taleefankaaga baad wadataa jikada hadaad cunto karinaysid taleefankaaga baad wadataa iskoolka taleefankaaga baad wadataa sariirta taleefankaaga baad wadataa markaad soo kacdid taleefankaaga gacanta ku dhigaysaa weligaa ma isweydiisay marka taleefankaaga maxaa kuu geynaya waa internetku muxuu yahay marka إلا إن تلفون كهتو قليلين هو تكون عاجزيسا وإن عاد مركا خدك استعماشا وإن عاد إنترنت كي سوق شاسو معه مركا ولي جاي مدرس ويدي ما لا إنترنت كوا محل مركا أنا كوير الشيء إنترنت كوا وياي مدام أنا أقول إنترنت كي كوجرة ده أو أي واحد الشقة ذي تايب إنترنت كوا وكلا بحا أفر هل أنا ما قرنايو أو ده كي سميع قرنايو ده وعقونت إيجوين لكن صدق ذكرنا ذي الشيء يا ميدي open web هل مرتاس عايزين شرحها open web waxa weeyaan meeshan hadda aad iga daawanaysid google markaad wax search gareynaysid meesha aad wax ka search gareynaysid chrome-ka waxyaabahan aanu isticmaalno dhan waa open web iminka haddii aad youtube iga daawanaysid ama facebook iga daawanaysid ama tiktok iga daawanaysid ama meel aad iga search garayso macnaha magacayga ku qortay aad iga daawanaysid waa meel open web la yiraahdo oo qof walba ayaa access u leh oo soo gali kara kana bixi kara waxna ka soo kororsan kara iskana dhaafi kara oo imka tusaale ahaan dad wax kala garan weydid ama aad wax fahmi weydid internetka la soo cararaysaa internetka weydiinaysaa Soomaha internetka aad wax weydiinaysid ee adigu aad awood u leedahay inaad wax weydiisid waa open web waa meel uu qof walba wax weydiin karo meel uu qof walba wax ka daawan karo taas waa taas talabaad baan u imaanaa marka talabaad waxa la yiraahdaa deep web macnaha waa meel loo ogol yahay inay isticmaalaan dad aad u yar oo macnaha tusaale ahaan dawladda oo kale dadka simikaaradina maamula dad baa simikaaradina maamula Soomaha macnaha simikaarkaad ku hadlaysid ee khadka ku shubanaysid ee la ordaysid dad baa maamula dad baa iskala Soomaha taas iyo wixii la mid ah waxa la yiraahdaa deep web tusaale ahaan dawladaha aad u adeegsada meesha aan lacagta dhigano address-keena maxaa la yiraahdaa waxyaabaha muhiimkeeno ah waraaqadaha halka yaalaan guriga hadaad iibsatay waraaqadaada halka ka soo helaysid taalo oo macnaha hadii lagu yiraahdo gurigan waad iibsatay laakiin waraaqadiisii kan maxaad ku cadeyn kartaa meesha waraaqadaasi taalo marka dawladdu waxay isticmaasho iyo dadkan simikaarada iyo waxyaabahaas iskale waxay isticmaalaan balada deep web dadkaasi waa dad macnaha awood u leh inay waxyaabo badan ogaadaan oo waxay isticmaalayaan deep web-ki markaa meeshaasna qof walba iskama gali karo qof walba iskama isticmaali kare in yarun baa isticmaali karta intaasina waa intay shaqadooda tahay tayna faataarjiinaya haddaba waxaa jirta meel aad u xun mid oo waxa in dhahay ma garanayaba taas aanu aqoon u milihi oo dadka la weydiin ma garanay taas laakiin mid kala jirta oo iyaduna aad u xun oo aad u xun dadku isticmaalaan waxa la yiraahdaa dark web kaasi waa mid aad u xun macnaha qofkii meesha ku jira wax khayr ma soo wado ama lacag buu dhacaya ama dad buu dilayaa ama waxba isku diraya ama wax khaldan buu iibsanaya ama gabdhaha la kala iibsanaya ama rag baaba la kireynaya hadii la rabo adu wax walba oo xun meeshaas yaalaan wax walba oo xun dark web kaas yaalaan dark web kaasna badanaa dawladdu ku jirtaa ma ogid adu qof kula sheekaysanay haduu doon waaba dawlad ma garanaysid baba marka internetkan lagu sheegayo intaas u qaybsamaa mar walba marka waa inaad ogaataa waxa aad isticmaalaysid wuxuu yahay inta uu qaybsamay iyo meeshuu ka imiday waa inaad ka war haysaa oo tahay qof baraarugsan marka maadaama oo taleefankaaga uu ku dhegsan tahay oo addictive ku tahay oo taleefankii maanta oo dhan gacanta ku haysid waa inaad isweydiisaa why aad taleefankan gacanta ugu haysaa taleefankan haddii aad wifi-ga ka xirtid oo lacag ku shub weydid faa'iido ma leeyahay no sababtoo internetkii baa ka maqan sababta marka inagu aan saan u maanta oo dhan leenahay adoo wadooyinka maraya aad wax la eegaysid waa internetka marka wax walba oo isticmaalaysid waa inaad iska eegtaa su'aalahan anu maanta hadaan kan isticmaalayo oo cunayo waa buskut Soomaa waa in dheedkiisa iska eegaade waa inaan garanayo waxaan af gelinayo taa macnaheedu maxay tahay wax walba oo isticmaalaysid iska eeg soo xaq baad u leedahay wax walba yar ogaatid oo eegayto dhahdid waxani muxuu yahay marka aad ugu maasantiin inaad wax ka faa'iideen barajiinaya waa inuu fiidiga dambe haduu ilaahay peace